siyaasi Axmed Cabdi Xaabsade oo horay xilal wasiirnimo uga soo qabtay maamulka Soomaaliland ayaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Garowe iyadoo soo dhaweyntiisu ay ka dhacday wadada ka timaada dhanka koonfureed ee magaalada Garowe ku-xigeenka madaxweynaha Puntland Cabdixakiin Cabdulaahi Cumar Camey qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada gudoomiyaha gobolka Nugaal iyo qaybaha bulshada rayidka ayaa ka qayb galay soo dhaweynta siyaasigaasi intaasi kadib ayaa siyaasi Axmed Cabdi Xaabsade waxaa loo gudbiyay xarunta madaxtooyada magaalada Garowe halkaas oo soo dhaweyn diiran uu kala kulmay madaxweyne Cabdulle Maxamed Cali iyadoo imaatinkiisa lagu tilmaamay inay muhiimad gaar ah ugu fadhiso shacabka iyo dawladda Puntland ku-xigeenka madaxweynaha Puntland Cabdixakiin Cabdulaahi Cumar Camey ayaa soo dhaweynta loo sameeyay siyaasi Axmed Cabdi Xaabsade kadib sheegay in xukuumadahan ay ku faraxsan yihiin in Axmed Cabdi Xaabsade uu Puntland gaar ahaan caasimadda yimaado madaxweynaha Puntland Cabdulle Maxamed Cali ayaa warbaahinta uga waramay waxyaabaha ay ka rajeynayaan imaanshiyihiisa maanta siyaasi Axmed Cabdi Xaabsade uu ku soo gaaray gudaha magaaladan Axmed waa oday nagu soo biiray taladiisa aqoontiisa khibradiisa siyaasadeed intaa waxay u tahay wanaag Puntland weeye waxaan rajaynayaa wada shaqayn fiican dibudhiska iyo unitiga iyo midnimada Puntland oo siyaasadda dawladda kow ka ahayd isaga iyo odayaashii kale ee dhammaantood noo yimid inay u yihiin budhigayaashii runta ahaa ee isu soo celinta iyo midnimada Puntland ka shaqaynteeda weeye Axmed waan ku faraxsanahay imaatinkiisa siyaasi Axmed Cabdi Xaabsade ayaa mahadcelinta loo sameeyay kadib sheegay ujeedka socdaalkiisa maanta uu Garowe ku yimid waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ku soo noqdo Puntland oo aan horay asaaskeeda wax ugu lahaa in doorana aan ka maqnaa haatana aan u soo laabtay inaan dib wax uga dhiso oo aan ka hawl galo yaan u imi waan idinku ballan qaadayaa inaan muxuu ahaa ka qayb gelayo arrintaas madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka lahaa oo iga codsaday inaan u imaado oo la shaqeeyo markaan ka soo ritaar garoobay Somaliland waan wax la qabtay laakiin aan muxuu ahaa hadda ka jeclaaday inaan taydii asliga ah socdaalka Xaabsade uu Garowe ku soo gaaray ayaa noqonaya markii ugu horeysay wixii ka dambeeyay dawladii madaxweyne General Maxamuud Muuse Xirsi Cadde waqtigaas oo ahaa wasiirkii amniga iyo DDR Puntland Umar Soomane TV-ga Universal Garowe.